maxaa dhacaya bartamaha bisha Ramadaan ee sanadkan 2020 maxayse tahay waxyaabaha iminka keenay in walaaca intaas la eg dunida oo dhan uu hayo waa 6da bisha afraad sanadka 2020 iminka u diyaar garow macluumaadkaasi oo dhameystiran waxaan ku hormari doonaa arrinta sida aadka loo hadalhayo caalamka oo dhan ayaa laga hadalhayaa warbixino ku saabsan in bartamaha bisha barakaysan ee Ramadaan adduunka uu ku soo dhici doono dhagax weyn oo kamid ah meerayaasha waxaana arrintaasi walaaca uu ku sii kordhisay caalamka bilowga bisha May oo ku aadan bartamaha bisha Ramadaan ayaa waxaa lagu waramayaa in arrintaani ay tahay mid si aad loo soo daalinayo dad badan ayaa arrimahaasi danaynaya inay wax badan ay ka ogaadaan walaacaasi waxa digniino ka bixiyay hay'ado badan oo saadaasha hawada qaabilsan sida hay'adda saadaasha ee Mareykanka iyo sidoo kale kuwa kale xilliyada ay jiraan walaaca iyo cabsida cudurrada qaar dadweynahana ay ka qabaan ayaa waxaa soo baxa hadallo kala duwan oo ku aadan halis ka weyn kuwa taagan inay soo socdaan dhawaan waxaa geyga Soomaalida laga hadalhaya arrin la xiriirta tinta oo lagu dhex arkaya kitaabka Quraanka Kariimka taasi oo macluumaadkeeda idin la wadaagnay isla markaana la sheegay inay daawo ay u tahay caabuqa coronavirus taasi oo haddana ay ka hadleen culimo badan haddana waxaa soo ifbaxay warbixino la xiriira inuu soo dhacayo bartamaha bisha barakaysan ee Ramadaan dhagax weyn kaasi oo dunida meel kamid ah ku habsanaya ama inuu dhacayo dhulgariir aad u weyn oo caalamka oo idil saameyn karaya qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa arrintaasi ka hadlay maalmaha kan waxaa batay sheekadaasoo dhinac marka laga fiiriyo naxdinteeda leh taasoo ugu darsantay dadkii naxdintii hore ee haysay ee guryaha ku xanibtay waxaa isoo gaaray fariimo iyo muuqaalo iyo codad looga waramayo in Ramadaanka soo socda haddii 15ka ama bartamaha Ramadaanka maalinka 15aad uu noqdo Jumco uu dhici doono dhulgariir oo ay dhici doonto qaylo samada ka yeerta dad badan dhaga tirta dad badan indha tirta dad badan hadal tirta dad badan argagax ku rida arrintaas aad loo wadwadaa marka laga yimaado hadalhaynta waxaa jira in si qaldan ay dadka ay kaga hadlayaan waxyaabaha dhici doona yacni cilmul ghaybka waxaana culimada ay qabtaa inay tahay arrintaani mid aanan wanaagsanayn oo ummadda qalqal lagu sii gelinayo hadba sheeko iyo waxaa soo baxaysa waxyaalo la buunbuuniyo oo saliya raatoona lahayn oo waqtiyada dhibka uu jiro lala beegsado taasoo la doonayo dadka in lagu sii cabsi geliyo ama leeyahay dad qaarkood ay niyad wanaagsan yihiin ay dhahayaan maadaama dadka dhibaato ku sugan yihiin ilaahay markaan ay u toobad keeneen laakiin toobadkeenka iyo dadkan ilaahay loo dhaweeyo oo ilaahay loo yacni qurxiyo acmaashiisa iyo wanaagga loogu dhawaanayo laguma sameeyo been ama waxaan jirin ama khuraafo iyo waxaan caqliga hataa galeen waaqaca iska badaa inuu ka turjumayo diin iyo cilmi toone sidoo kale waxaa jira xadiis uu wariyay Nucayb Xamaad oo qoray buug oo inta badan uu kaga hadli jiray waxyaabaha dunida ee ka dhacaya cilmul ghaybka walow sax ahaanshihiisa u baahan tahay in la xaqiijiyo horta xadiis baa arrinta tilmaamaya oo dadka qaar xataa wax sheega ee aan kala saarin waxyaalaha saxda haddii waxaan ay ku saabsan yahay dikri iyo duco iyo wax dadka si gooni oo anfacayo shariicadii si guud u hoos jooga dhib ma lahaateenba laakiin arrinkan waa arrin ghaybka ka waramayo kow haddana waxaa ku jirtada arrin cabsideeda leh oo ka yaabinaysa markaad dhageysatid horta xadiiskani inuu sugan yahay in kale ayaa rabnaa inaan ogaano kadibna aynu yacni saarno qadiyadatan xadiiskani waa xadiis uu wariyay caalimkii la oran jiray Nucaym ibn Xamaad kitaab wuxuu leeyahay la yiraahdo kitaabka yani kitaabul fitankii aakhir zamanka waxa dhacaya waxyaalo uga waramaya wax saxaya wax khaldan oo riwaayadu ay saxiixayna uu ku wariyaa marka riwaayada aan saxiixayn sida culimadu ay tilmaamaan xadiiska waxa kamid ah midatan mawduucina ku soo qaadanayno ilaa waxa jirta cilmi la yiraahdo cilmiga xadiiska iyo rijaashiisa oo ah cilmi ay muslimiintu gooni leeyihiin xitaa ay qireen kuwa muslimiinta ahayn aqoon-yahanada ay mustashriqiinta qaar lagu magacaabo buugaagta qoray islaamka iyo taariikhdiisa ka qoray waxay dhaheen cilmigaas oo ah cilmiga xadiiska waa inay muslimiintu ku faanaan bilaadanka bilowgiisa marka laga waramayo iyo xataa dadka kale muslimiinta ahayn diimada marka laga waramayo taariikhdooda isku khilaafaan qaar baa wax ku dhahay saas way qaar baa saas ku dhahay laakiin marka xadiis iyo ahkaamtiisa laga waramayo culimadu isku khilaafaan bimaana qaacida ahaan يا لو كذا هل كان حديث مسوقية مسوي ضعيف ولا غير المي لكن كقاعدة هان سنة كحديث هي قواعد كوسابسا وعلم كلية المسلمين قوني لتها يولدوني كفاران وده رجاشي سرع وكتبتي سرع وتاريخ دي سرع
ilaahay ka abaalmariyay ahlu cilmigii hore. marka xadiiskani waa xadiis laga wariyay saxaabiga la yiraahdo Cabdullaahi ibn Mas'uud. aynu aragna marka xadiiskan waxaa rasuulka ilaahay laga wariyay inuu yiri idaa kaanat sayhatan fi ramadaan, qayla haday dhacdo ramadaanka dhexdiisa, tumayizu alqabaa'il fi dhilqicda wa tusfiku ad-dimaa fi dhilxija walmuxaram. yani waa dhibaato dhacaysa wey. haddii qaylada dhacdo bilahaas ayaa dhibaatooyinka dhacayaan. shawaal ay kamid tahay, muxaram kamid tahay, kamid tahay dhilxija oo bilaha ka dambeeya wey ramadaanka. ilaa qayla dhacday ramadaankii, qabaa'ilka la kala saaraya dadka, adigu xagga u baxday u bax, qaar baa la laynaya wey. musiiba dhacaysa wey. habeenka jumcada ee bishu ramadaan 15 maraysa arrintan dhici. fa idaa sallaytum al-fajr min yawm al-jum'ati, maalintaasi haddaad tukataan salaad subax, fadkhuluu buyuutakum, guryihiina gala, waaqliquu abwaabakum, albaabadiina soo xirta, wadathiruu anfusakum, naftiina qariya, marya isku laalaaba, dhegihiinana xirta. idaa axsastum bisayxati fakharuu lilaahi sujadan waquluu subxaana allahi alquduus, subxaana allahi alquduus, rabbana alquduus, faman yafcal dalika najaa waman lam yafcal dalika halak. haddaad dareentaan qayladaasi dhulgariirkaasna ilaahay sujuud oo la dhaca, waxaana tirahdaan subxaana allahi alquduus, subxaana allahi alquduus, subxaana allahi alquduus 3 jeer, rabbana alquduus. qofkii sidaa sameeya waa badbaaday, qofkan sameeyna halaka waa halaagsamay. riwaayada badan xadiiskan lagu wariyay marka oo kala duwan kala nooca. waxaa kamid rasuulka ilaahay inuu yiri maalin ta jumcada ee ramadaanku hadii ku aado maalinteeda 15aad jumcana ay noqoto, waxaa dhici doona inta wixii ka dambeeya shawaal, bisha xajka, tan kale muxaram, waxaas oo dhan dagaalo, burbur, balaayo, dhiiga la daadinaya, dadkii baa is cunaya. bisha ramadaan niskeeda ayuu dhacaya goor barqa arintaas hadii waafaqo, yani qaylada loo jeeda markay dhacayso wixii ka dambeeyay balaayadu imaanayso. markaas rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri bisha muxaramna dhib baa dhacaya, dadkii baa islaynaya, waliba si wax isu laynayaan aqli darro ah oo kala saarid la'aan, xasuuq bay isu geysanayaan baa rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam. dhul gariir baana habeenka dhacaya markay qayladu yarto ee subaxa jumcada 15 bisha ramadaan markay ku aadanto. markaas rasuulka riwaayad kale waxa loogu wariyo kale يكون في رمضان صوت، رمضان عبا يريتونا. قالوا وحيدا يا رسول الله في أوله أو في وسطه أو في آخره، ووحو دعيا أول كرمضان مسي آخر كيس مسدحدحات بشا برتميات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل في نصف من رمضان، برتمها رمضان كايو دعيا هدي همين كا برتمها أيها نقطها من جمعاء. يكون صوت عبا وحكيريا من السماء سمدا يحق سريع، يسعق له 70,000، waxaa la suuxaya codka dartiisa 70 kun, waxaa la dhagabeelaya 70 kun, waxaa la afbeelaya carabka tir hadalka kari waayay la indhabeelaya 70 kun. oo bimaana qof baa loo jeeda. markaas waxay dhaheen yaa rasuulallah faman as-salimu min ummatika, yaa ummadaada marka ka badbaaday. markaas nabigu wuxuu leeyahay riwaayada sida lagu tilmaamay man lazima baytahu, gurigiisa qofka jooga, wa ta'awwada bis-sujuudi, sujuudana magan gala, wajahara bit-takbiri lillah, korna codka ugu qaada takbiirta alle, qofkaas badbaadaya. thumma yatba'u sawtun aakhara, cod kala raacaya. fa sawtu al-awwal, codka hore ee sidaas ku dhacayso sawtu jibriil way, jibriil codkiisa. wa thani midka labaadna sawtu shaytaan way, codki shaytaan way. markaas riwaayada hadda soo tilmaanay uu sheegay rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam bisha muharram maxaad ku ogtiin? muharram waxa dhacaya awalkiisa balaayo ummadayda ku dhacda, aakhirkiisa laakiin waa u khayriye faraj bun rasuulku ilaahay alayhi salatu wasalaam. walaw riwaayada mudhaif ahaatee laakiin markaas aan fiiriyo waxaan dhahay bilahan dadka qaybahooda hore yani dhib bay dareemayaan cabsi. ramadaanka soo socda waxa laga yaabaa niska hore in ciladan ay sii jirto, ilaahay ka filimayne, laakiin insha Allah ramadaanka aakhirkiisa ayaa faraj ku imaanaya iyo khayrka iyo gargaarka biidna mixnadan laga baxaya. xadiisku wuxuu kale riwaayadaha ku sii tilmaamaya in dadka xajka la soo weerarayo, la dhacayo, la kufsanayo, dhibaato badan buu sheegay oo cabsideeda leh. marka waa xadiis riwaayad sida lagu wariyay Tabarani asal tabkiis waa wariyay, laakiin xadiis sugan ma aha. ragga wariyay rag lagu kalsoon yahay ma kuwa xadiiskooda laga batagay oo la qaadan oo beenalayada ku jira sanadka, qaar la isku khilaafsan yahay, qaar xifdigoodii baabay baa ku jira, kuwa daciifa baa ku jira. ugu yaraan xadiis daciif way, qaarna culimadu ku tilmaameen inuu yahay xadiis been abuura oo fitanka lagu abuuray. been abuur maxaa keeni kara? waxay is weydiin kartaa qof muslimin maxamed ku been abuuranaya? ismoodsiiskow qaran niyad fiican ku been abuurta
waxay dhahayaan dadkiiba waxay ka tageen qur-aankii diintiibay ka tageen. marka laabudda wey waa inaan hal abuurnaa wax cabsi geliyo oo qur-aankii jeclaysiiyo diintii usoo celiyo. laakiin in aad niyad wanaagsan tahay iyo inaad niyad xun tahay waa isku mid, qaarkoodna niyad xumay u sameeyaan. waxaan filayaa inaad hesheen macluumaadka ku aadan hadalhaynta dunida oo dhan laga hadalhayo dhulgariirka ka dhacaya dunida iyo hadallada ay culimmada ay ka jeediyeen.